السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامتين دمانتينا قفك هلك كهلا يوا نور إبراهيم علي waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo casharkeeni ahaa basic English lesson 3 ayaa maanta qaadanaynaa waxaan horey soo qaadanay laba cashar oo basic English lesson 1 and basic English lesson 2 haddaba maantay waxaan qaadanaynaa lesson 3 ama casharkii saddexaad horey waxaan soo qaadanay ABCD iyo demonstrators-kii ama kuwii wax tilmaamayay iyo pronouns-kii iyo laba xiisadood ayaan kusoo qaadanay haddaba casharkan yar oo kooban waxaan ugu tiragalay qofka luqadda bilowga u ah oo aan fahansanayn haddii aad tahay qof luqadda aad u yaqaano uma baahnid inaad kan mar kale aad dhegeysto soo waxaa lagu tiragalay casharkan siduu u yaryahay u jeeda dadka bilowga ah ama dadka hadda ku cusub tahay barashada luqadda dadkaas ayaana lagu faa'iideynayaa qof kasta waxaan leenahay ka faa'iideysi wacan meeshan waxaa ku yaala conversation between two persons conversation wada sheekaysi between u dhaxeeya two persons laba qof marka conversation ka waa wada sheekaysi between ka dhaxeeya ama u dhaxeeya two laba persons oo dad ama laba qof ka koobaad waxa weeye how are you seetahay aan leenahay tan r ma dhahayno how are you seetahay I am fine waan fiicanahay and you adna I am fine too aad iyo aad ayaan u fiicanahay ama sidoo kale waan fiicanahay I am fine waan fiicanahay too sidoo kale ereygan too wuxuu kaloo noqonayaa emphasis yani adkeyn waxba u xoojiyaa too much aad u badan haddii lagu dhaho too long aad u dheer too easy waxyaaba noocaasa imaan karo goodbye nabadgelyo goodbye nabadgelyo goodbye nabadgelyo goodbye too nabadgelyo sidoo kale aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin haddaad doonayso casharkan inaad fahanto kusoo celcesho in badan dhegeyso oo dhegeyso waad fahmi doontaa insha allah hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa intaan kulmi doono cashar kale oo noocaani ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu